ganacsatada beesha habargidir ayaan maqlaynaa in laga iibiyo sidaa daraaddeed beesha habargidir waxaan ugu digaynaa inay ka fogaato meeshaas iyo beelaha Soomaaliyeed ee ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan waxaan u sheegaynaa meeshaas waxay ahayd dhul dawladeed oo annaga aan deganaa sidaa daraaddeed haddii dadegaya annaga ayaa degaya beesha xawaalle oo deganeed damiska aniga oo ah afayeenka beesha xawaalle deganeed damiska waxaan rabnaa xaalada jira inaan ka hadalno xaaladahaas oo ah beriga aan meesha ka guureynay ama nala ka rarayay dawladdu waxay noo sheegtay in dangi loo qabanayo haddana waxaan ka war helnay in danan gaara loo qabanayo sidaa daraaddeed waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beelaha Soomaaliyeed ee ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan waxaan u sheegaynaa meeshaas waxay ahayd dhul dawladeed oo annaga aan deganaa sidaa daraaddeed haddii dadegaya annaga ayaa degayna ganacsatada Soomaaliyeed marka waxaan uga digaynaa inaysan meeshaas isku gadanin isku imaanin sidaa daraaddeed beesha xawaalle ee ka dhalanana dadka waxgaradka ah siyaasiyiinta nabadoonada xildhibaanada waxaan gaarsiinaynaa in meeshaas dhibaata inagula dhacday annaga ku dayacannahay intaa ka bacdina waxaan ku soo dhaweynayaa odayaasha hadalka iga dambeyn lahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ganacsato oo beesha habargidir ayaan maqlaynaa ganacsatada beesha habargidir ayaan maqlaynaa in laga iibiyo sidaa daraaddeed beesha habargidir waxaan ugu digaynaa inay ka fogaato meeshaas wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu